xidigaha Erling Haaland iyo Phil Foden oo ceebta Man United banaanka keenay haddaba maxay sameeyeen muuqaalkan ayaa kugula wadaagi doona balse intaan gudaha galin waxa ka codsanaya inaad ku soo biirto bartida TikTok oo aad follow soo tiraado sidoo kale diris jeer iyo ka badan hadii daawato calaamada goob linki si uu dad badan u gaaro sidoo kale soo booqo barigii kale ee Facebook iyo YouTube ee Sulaiman Al-Adaala oo aad ku maasan tahay socodkaaga la jaanqaadkaaga markasta maasanid xidigaha kooxda kubadda cagta Manchester City Erling Haaland iyo Phil Foden ayaa kaasta ku kiciyay kooxda Manchester United labadan xidig ayaa Manchester City ku hogaamiyay guul soo labasho leh oo ay ka gaareen Manchester United. Foden ayaa United ka dhaliyay 2 gool oo xiriir ah koor inta uunan Haaland hurdada ka kicin isla markaana uu dhalin gool waqti dambe kadib labadaasi gool labada xidig ee Haaland iyo Foden ayaa xaas ka dhigtay Manchester United marka laga hadlayo goolasha. Haaland iyo Foden ayaa goolasha ugu badan ka dhaliyay Manchester United labadan xidig ayaa min 6 gool ka dhaliyay Manchester United tan ilaa xilciyaareedkii hore taas oo muujinaysa in ay ilkaan u leeyihiin kooxda kubadda cagta Manchester United markay la ciyaarayaan. Dhanka kale xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa taageerayaasha kooxdiisa xasuusiyay halyeeyo u soo jabay Manchester United. Marcus Rashford ayaa daqiiqadii 8aad hogaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester isagoo gool waali ah hogaanka ugu dhiibay kadib goolkaasi. Marcus Rashford ayaa taageerayaasha masraxa riyada xasuusiyay halyeeyada Wayne Rooney iyo Eric Cantona. xidiga reer England ee Rashford ayaa goolkiisii shanaad ka dhaliyay tan iyo markii uu kulankiisii ugu horeeyay ka hortagay. xidiga Rashford ayaa kaliya ka dambeeyay halyeeyada Manchester United ee Wayne Rooney iyo Eric Cantona kuwaasi oo ka dhaliyay goolasha ugu badan kooxda kubadda cagta Manchester City. Wayne Rooney ayaana isagu ah xidiga ugu goolasha badan ee kulanka Manchester Derby kaasi oo isagu 11 gool ka dhaliyay kulankan.